إن شاء الله تعالى waxaa inoo bilaabmi doonta nadwada la iclaamiyey ee ciwaankeedu yahay alfiqhu fi ddiin wa aatharuhu fi tanmiyati almujtamac. nadwa cilmiyeedkan oo socon doonta in sha allahu tacaala 3 habeen waxaa ka qayb qaadan doona culimo aqoon-yahana oo kala duwan oo gobolka iyo gobollada kaleba ka yimi, waxaana lagu qaadaa dhigi doonaa sida shicaarka guud ama ciwaanka guud ka muuqata mawaadiic ku saabsan cilmiga shareecada iyo raadka uu ku leeyahay bulshada. caawa insha allahu tacaala sida iclaanka aad ku aragteen waxaynu qaadan doonaa mawduuca koobaad oo laba aynu u qaybin doono manhajiyatu daalib alcilmi wa aadaabi. waxay noo geli doonaa doctor xasan sheekh cali warsame oo dhinacayga bidix fadhiya. mawduuca labaad aynu isla caawa qaadan doono waa namaadij min sabri alculamaa fi dalab alcilmi. sheekh maxamed ibraahim jaamac ayaa isagana insha allahu tacaala inoo qaada dhigi doona. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ما هذا لدبد سبحانه وتعالى وحن ما علينا إياه الإخوة في المعهد العالي وإنوسو قبن قابية كل كان إنوسو قبن قابية أما ندوة علميات كان سوها بيي لقاها الله علمك شرعك يا سامنت بالشدة كلية هاي وهذا موضع حلقي سين ويمي يضو إن بدنو قوبها وحبر الشدو أي حوية فصح قلان مرحلة عصبة ما حل عصبنا لو ديار قروب أيو لدونا يقفك علمك طلبيانا إن أنو فصح يالنا مر والبا وحوية وعلمك كفايديستو. kelmadaydu in sha allahu tacaala sidaa la tilmaamay waxay ku saabsan tahay almanhajiya fi طalab اlcilm. almanhajiya haddaynu ciwaanka dul istaagno, almanhajiya waxaa laga keenay min annahji baa laga keenay, waa wadadii wey, waa wadadii cilmiga lagu xasilin lahaa ama qaabkii cilmiga loo dalbi lahaa ama qofku markuu cilmiga dalbayo asaaliibta iyo wadooyinka uu marayo si uu cilmiga u xasiliyo. waana mawduuc aad iyo aada u muhima, laguna soo koobi maayo hal muxaadaro iyo muxaadarooyin badan oo kala dambeeya, wax lagu soo koobi kara ma aha. waa mawduuc mutashaciba, waa mawduuc ballaarhan, laakiin waxa weeye in sha allahu tacaala niqaad ra'iisiya ama qodobo aan isleeyahay waa muhim ayaan doonayaa in sha allahu tacaala inaan ka tilmaamo mawduuca. markaan leeyahay waa mutashaacib, sidaad ogsoontihiin culumta islaamigu aad bay u ballaarhan tahay, waa cilmiyo badan wey. fiqigoo keliya wuxuu noqday xiliyadan dambe cilmiyo badan oo kala duwan. funuunta kalena awalba waa badnayd, funuun badan baa si kala dhambalmay oo qaybo badan waxa weeye noqday. cilmi walba kutub buu leeyahy, rag buu leeyahy, taariikh buu leeyahy, manduum iyo manhuur labadaba waa leeyahy. marka cilmi keliya in laga hadlo majaalaadkiisa iyo qaabka loo xasilinayo iyo wadooyinka loo marayo, wuxuu cilmi waliba leeyahay qaab buu leeyahay. cilmiyada qaar baa u baahan tatbiiq u baahan oo mumaaraso u baahan, qaar baa xifdi u baahan. laakiin mar haddii hadda la isku qaaday, si guudun baan in sha allahu tacaala uga hadlaya. diraasat اlfiqh manhajiyu ley, diraasat اlcaqiida, diraasatu usuuli اlfiqhi maala, mid waliba qaab iyo waxa weeye kutub iyo howlu leeyihi. laakiin in sha allahu tacaala waxaan isku dayayaa inaan qodobo guud oo cilmi walba looga faa'iideysanayo inaan wax ka tilmaamo in sha allahu tacaala. manhajiya waxaynu ku tilmaannay waa wadada cilmiga loo marayo. waxaanaynu u qaybin karnaa manhajiyada laba qaybood baynu u qaybinaynaa. mid waa manhajiyatun asliya, midna waa manhajiyatun farciya. mid waa manhajiyatun xisiya,
midna waa manhajiyaة macnawiya, midi waa manhajiyaة maqsuuda, midna waa manhajiyaة tabaciya. wadada cilmiga lagu xasilinayo midi waa asal oo waa laga maarmaan, cilmigana waa lagu xasilinaya. hamarada cilmiga iyo natiijadiisa inuu noqdona waa loo baahan yahy. waa muxaadarada qeybteeda labaad wey, ama cinwaanka aniga la isiiyey manhajiyaةu طalab اlcilm wa aadaabu, aadaabta loo baahan yahay marka cilmiga la dalbayo, waana qabla اlcilmi waana bacda اlcilmi wey. aadaabta la sheegaya cilmiga in lagu camal falo, alle subxaanahu wa tacaala lagaga cabsado, niyada in la wanaajiyo, iyo qodobada la midkee la tilmaamo. waxa weeye iyada lafteeda waxay tahay wado lagu gaadhayo cilmiga lagu gaadhayo. waataquu llaha wayucallimukum اllah, culimaduna waa tilmaameen waxaa ugu badanee cilmiga lagu xasiliyaa waa in waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala lagaga cabsadaa. marka kaasi waa manhajiyaة asliya, waa wadada maqsuudka ah ee cilmiga looga jeedo. waayo cilmigu waa wasiilo, gaayada iyo ujeeddada laga leeyahay waa in lagu xaqiijiyo xikmaddii laynoo abuuray, wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun. marka cilmigu waa wasiilo, camalkuna waa hamara wey. ku fogaan maayo mowduuca isaga ah, dhowr qodob baan ka tilmaamaya. qodobka koowaad waxa uu yahay, marka la doonayo cilmi, horta cilmiga laga hadlaya waa cilmiga sharciga wey, maaha culumta dunyawiga ah. haba noqoto wax loo baahan yahay, culimmadu ha gaadhsiiyaan fardu kifaaya inay tahay. ummadda cid barata oo danaheeda ugu qunta in la helaa waa waajib, si guud bay ummadda waajib ugu tahay. laakiin cilmiga ilaah iyo rasuulkiisu ay ka hadlayaan, fadligiisana la tilmaamay, nadwadana loo caqiday, waa cilmiga sharcigaa wey. alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bilcarfaani. waxa weeye kan loo yaqaano ilaah iyo rasuulkiisa cilmiga laga dhaxlay. cilmiga noocaasaynu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu ka hadalno. marka cilmiga laga hadlaya waa cibaado, barashadiisa la baranaya waa cibaado wey. waxaana cid waliba ogsoon tahay cibaadadu shardiga koowaad ay ku ansaxdaa waa in niyada la wanaajiyo wey, oo ikhlaas lagula yimaado, oo ilaahay dartii loo dalbado. ikhlaas in lala yimaado sharci waa inugu gubaabiyey, wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin. cilmiga in la dalbaana cibaadada ayuu ka mid yahay. cagsigeedana waa laynooga digay. axaadiista aadka u badane sunanta ku timi, sida xadiidkii kacb ibni malik wagayrihi min الصaxaaba, man طalaba اlcilm ligayr اllah, qofka u dalba cilmiga ilaahay darti, adkhalahu اllahu الnaar, alla subxaanahu wa tacaala naar buu gelinayay. man طalaba اlcilm liyumaariya bihi الsufahaa aw yujaariya bihi اlculamaa aw yasrifa wujuuha الnaasi ilayh falyatabawa maqcadahu min الnaar. qofka cilmiga u dalba si uu culimada ugula tartamo, oo marka dee uu maqlo nin shiikoo cilmilo meel ka hadlaya, intuu xoogaa la garaba istaaga uu yidhaahdo wahaa ana da, aniguna way ka kan, isagoo aan cilmi lagu ogey, taasuu cilmiga u dalbaya. ama yumaariya bihi sufahaa, wuxuu waxa weeye doonayaa inuu kula murmo dadka sufahada ah, inuu ku doonayaa fi lmajaalis, uu isku qurxiyo. ama wuxuu uga jeedaa liyasrifa wujuuha annaasi ilayh, dadku si ay ugu soo jeestaan oo ay wax uga qaataan oo loo soo qaabilo ayay ujeeddadiisu tahay. nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam, niyooyinka haddii cilmiga loo dalbayo falyatabawa maqcadahu min annaar, qofkaasi booskii uu naarta ka gelaya ha diyaarsado. waa inshaaءun yuraadu bihi alkhabr, ay tabawa'a maqcadahu min annaar baa looga jeedaa. ficilka uu sameeyey buu ku diyaarsanayaa booskii uu naarta ka gelayay. waxaa muhima qofka doonaya cilmiga sharciga inuu barto inuu niyada wanaajiyo.
niyaduna aqbali mayso waxa weeye tashriik aqbali mayso waa inuu niyada wanaajiyaa oo asalka uu ka dhigaa wuxuu u dalbayo ilaahay dartii waa inuu waxa weeye ka dhigaa kadib haddii ay ka dhalato masaalix iyo manaafic dunyawi waa tilka caajilu bushra almu'min sida nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laakiin yoolka koowaad waa inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala iyo addaar alaakhira in looga jeedo qaabka niyada loo wanaajinayaa waa sidee imaamu axmed baa kuu caddaynaya wuxuu leeyahay imaamu axmed alcilmu laa yacdiluhu shay idaa saxat fiihi niya cilmigu shay u dhigmaa ma jiro haddii niyada la wanaajiyo waxaa la yidhi yaa abaa cabdillaah sidee baa niyada loo wanaajinayaa waxa uu yihi an tanwiya rafca aljahli can nafsik uma can gayri waa inaad niyooto inaad jahliga naftaada ka zuuliso oo aad ka kor yeesho oo aada juhaasha ka baxdo laba markaad jahliga aada naftaada ka saarto cilmina aada xasiliso laba inaad niyooto dadka kale jahliga inaad ka saarto labada imaamu axmed baa sheegay waxay kaloo culimmadii dambe ku dareen waxaad kaloo niyoonaysaa silsilada kala dambaysa ee cilmiga kala dhexlaysa inaad waxa weeye ka mid noqoto waxaa ka mid oo aada niyoonaysaa cilmiga inaad noolayso oo waxa weeye aada fidiso oo dadka aada gaadhsiiso iyaduna waxa weeye waa mid la niyoonayo wey qodobkaa koowaad waa in ikhlaaska lagu dadaala marka cilmiga la dalbayo qadiyadda labaad iyaduna aada iyo aada muhimka u ah waa taskiyatu nafs nafta in la tahiro nafta in la safeeyo nafta waxa weeye in laga madhnaysiiyo aafaadka waxa weeye cilmiga qofka ka hor istaagaya kadibna marka laga madhnaysiiyo takhliyo lagu sameeyo in laga buuxiyo oo nafta lagu hagaajiyo oo lagu qurxiyo waxyaabaha wan wanaagsan altakhliya uma altaxliya alla subxaanahu wa tacaala suuratu shamsi waduxaaha 11 dhaar buu dhaartay oo alla subxaanahu wa tacaala ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وحال سبحانه وتعالى كوبية طبندام مركو دارتي oo alla subxaanahu wa tacaala ka dambaysiiyey isagoo hadalka adkaynaya waxaa liibaanay oo badrhaadhay oo guusha gaadhay qofka naftiisa taskiye ku sameeya qofka naftiisa tahira ee waxa weeye safeeya wuxuu ka safaynayaa markaynu soo koobno almacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubta ha noqoto macaasida qalbiga degaysa oo ah macaasida iyo dunuubta ugu halisaysan ee qofka cilmiga ka hor istaaga hadday tahay niyada xumaata hadday tahay isla weyni qofka inuu galo haddii xasad uu gelayo haddii cuqdad iyo nacayb qalbigiisa uu degayo iyo waxa weeye waxyaabaha macaasida ee qalbiga dega oo saameyn badan qofka ku yeelanaya cilmigiisa iyo dhaqangelintiisa inuu ka safeeyo qadiyadda labaad inuu waxa weeye naftiisa markuu aafaadkaas uu ka saaro ee uu ka safeeyo inuu waxa weeye ku buuxiyo ku camiro lidkeeda wanaagsan inuu ku camiro oo kow ay ka tahay cilmiga inta uu ka haya inuu ku camal falo haddii kale oo cilmigu uu isgaadhgaadho oo waxa weeye cilmiga uu dalbo isagoo aan ku camal falin waxaa laga yaabaa hadhow inay ku adkaato meeshii uu ka bilaabi lahaa 100 waajib oo uu ka gaabinayo iyo 100 macsiyo uu ku sugan yahay oo mid walba daliilka waajibinaya iyo daliilka ka xarimaya uu hayo baa waxaa laga yaabaa marka dambe shaytaan inuu isu dhiibo meeluu ka bilaabo garan waayo culimaduna waxay tilmaameen
waxaa lagu tababartaa sida cilmigaba uu u kobco oo loogu tababarto oo maalinba wax loo siyaadsado ayaa camalkana loo baahan yahay sidaas si leeg in loogu tababarto oo maalin keliya wada awoodi maysid raggii cubaadda ahaa ee cibaadada badnaa inaad sidoodoo kale noqoto laakiin salaada ayaad waxaad ilaalinaysaa waqtigeeda jamaceedaad ilaalinaysaa rawaatibteedaad ilaalinaysaa waxaad ilaalinaysaa duxada iyo salaatuleylkii saasaad usii wadaysaa khushuucdii baad sii kobcinaysaa salaadaadu tii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u dhowaato sunnayaashaydii baad ku dadaalaysaa waa marka laga hadlayo cibaadada salaadoo keliya cibaadooyinkii kalena waa la mid marka atadaruj fi lcamal in waxa weeye aalibulcilmigu ku dadaalo oo markuu mas'alo bartaba markuu xadiid faa'iidaystaba inuu u degdego dhaqangelinteeda u degdego waana siday salafkii ku soo baxeen wakiciya raggii la midkaa waa kuwii lahaa kunaa nastaciinu calى xifdi اlxadiidi biاlcamali bihi xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xifdintiisa waxaanu u kaalmaysanaynay inaanu ku camal falno imaamu axmed oo lagu tilmaamay 700 kun oo xadiid inuu dusha ka hayo wuxuu leeyahay markaan xadiid maqlo waan ku camal falay ilaa aan maqlay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu istoobay sida saxiixaynka ku timi oo abu طayba ninka la yidhaahda uu toobay nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam dinaar uu siiyey wuxuu hi markaan xadiidka maqlay shiikaygii aan ka qaatayba waxaan u yeedhay nin itooba waxaa laga yaabaa toobinba inaanu xiiseynayn ama aanu u baahnayn nin itoobaan u yeedhay waan istoobay waxaanan siiyey dinaarkii mid la mida ayaan siiyey buuri camalkaa loo degdegay caaisha radia allahu tacaala canha ayaa waxaa u yimi nin taabiciintii ka mida wuxuu ka qaatay waxoogaa axaadiida buu ka qaatay maalin labaadkii buu soo noqday wuxuu hi axaadiid baan doonayaa waxay tidhi kuwii shalay ma ku camal fash weli maya buud waa sida xaalka dalabatulcilmigu yahay kitaabka aan dhammeey qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan aan guursado markaasaan salaatuleylka bilaabaya ya 40 jir aan gaadho waxay tidhi axaadiistii shalay ma ku camal fash wuxuu ihi weli maya waxay tidhi falima tastakhiru xujaj allahi calayh haddaba xujooyinka ilaahay maxaad u badsanaysaa aada isugu badinaysaa iyadoo kuwii hore lagugu leeyahay kuwo dambe maxaad tuurta u saaranaysaa qodobkaas wuxuu kuu furayaa haddaad inta aada haysa aada ku camal fasho niyaddana aada wanaajiso waxaad ku helaysaa cilmi aadan hayn baad ku helaysaa siday salafkii tilmaameen xadiid ahaanna waa loo soo naqliyay laakiin nabiga kama sugna man camila bima calim alhamahu allahu cilma maa lam yaclam qofka ku camal falay inta u yaqaano dhaqan geliya ilaahay wuxuu ku ilhaamiyaa waxaanu cilmigeeda ahayn loogama jeedo waxyi inuu ku soo degayo laakiin waxaa looga jeedaa baabka fahamka alle subxaanahu watacaala inuu u furayo labada nin ee waxaa weeye aayadda wada xifdiyey baa midi waxaa laga yaabaa 10 mas'alo ama 10 fiqi inuu kala soo baxo midna waxaa laga yaabaa intaa ka muuqanaysa in dhaafsiisan inaanu ka fahmin waxaa ka qayb qaadanaya sida qalbigu u qoyan yahay u soo jeedo ayaa waxa weeye ka qayb qaadanaysa qodobkaa ku fogaan maayo waxaa loo yaqaanaa manhajiyatun asliya waa waddo asaasiya haddii aada doonayso cilmiga inaad ku soo baxdo la doonayo waddada noocaasa inaad marto haddii kale xaalkaagu wuxuu ku dambeynayaa culamaau suu culimada xunxun ee xalaal iyo xaaraani aanay u kala socnay ee waxaa weeye hawadiisa raacaya allana subxaanahu watacaala tusaalaha ugu xun kitaabkiisa ugu tusaaleeyey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin walow shiئna larafacnaahu biha walakinahu akhlada ilى اlardi wاtabaca hawaa famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad ay baa lagu tusaaleeyey dameerna waa lagu tusaaleeyey mathalu aladiina xumiluu الtawraa ثuma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaati اllah wallahu laa yahdi اlqowma الظaalimiin mowduuca in sha allahu tacala intaasaan ku dhaafaya
hadal waayeelna waa guudmar baa la yidhi in waxa weeye lagu dadaalo niyadda in la wanaajiyo cilmigana waxa weeye lagu camal falo qodobka labaad waa qodobka ku saabsan almanhajiya qaabka xisiga la dareemayo ama wadada la doonayo taalibulcilmigu inuu maro markaynu mawduucan ka hadlayno qaabka loo dalmayo cilmiga loo dalbayo manaahijta culimmadu markay ka hadlayaan aada bay u badan tahay oo qofku mawduucan ka hadlaya waa qof cilmi la wey waayo qof aan cilmi xasilin oo aan ahlulcilmi ahayn waa faaqidu shay laa yucطiih awood umale uu kaga hadlo wadooyinka cilmiga lagu xasilinayo nin ahlulcilmiya unbaa mawduucan ka hadlaya marka ahlulcilmigu markay ka hadlayaan tafaasiisha mawduucan nin waliba sida uu ku soo baxay ee cilmiga uu ku xasiliyey ama wadada uu isleeyahay way ugu habboon tahay cilmigana waa lagu xasilinaya isaguna uu tijaabiyey ayuu waxa weeye ka hadlaya laakiin insha allahu tacaala sidaan tilmaamay qodobo aan isleeyahay waa qodobo guud iyo talooyin guud anigoo welibana waaqica dalabatulcilmigeena ku salaynaya ayaan insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa qodobka koowaad waxaa aada iyo aada u muhima daalibulcilmi si uu waddadaa u qaado inuu waxa weeye ku dadaalo kutubta ka hadlaysa dalabulcilmiga iyo fadligeeda kayfa tataxamasu liطalabi اlcilm almushawiq ilى اlqira'ati wa طalabi اlcilm alxath calى اlcilm qadiima wa xadiiثa culimada islaamku kutub bay ka alifeen waayo qofkaynu la hadlaynaa waa qofkii doonaya cilmiga inuu dalbee soo jeeday ayaynu hadda ka hadlaynaa laakiin waxaa ka horeysa maxaa loogu soo jeesanayaa cilmiga fadliga kitaabka iyo sunnada lagu sheegay ee cilmigu leeyahay waa qodobka koowaad ee asaasiga u ah cilmi in la dalbo marka xiisaha la helo danayntaa la helo jacaylkaa la helo qofka noocaasaynu la hadlaynaa waddadii uu mari lahaa marka mawduuca isaga faahfaahin maayo fadlu lcilm iyo kutubta laga alifay oo aada u badan qadiiman wa xadiiثan inuu qofku akhriyo kutubna ka dhaqdo mobeylkiisa ku shubto mutaalaceeyo muxaadaraadkeeda dhegaysto waa qodob aada iyo aada u muhima waayo shayga markaad qiimihiisa barato ayaad waxa weeye dalbaysaa taa waxaan ugaga gudbayaa qodobka labaad oo iyaduna muhima man huwa طaalib اlcilm qofkan aynu leenahay waddadan uu qaadaya waa ayo waayo dadku waa kala duwan yihin qof waa qof da-ya waktina haya cilmigii sharciga ahaa u soo jeeda doonaya meel fiican inuu ka gaadho kaasi waa qof waxa weeye waa xaalo wey waxaa laga yaabaa qofkii inuu yahay qof weyn oo injineera ama waxa weeye shaqo caadiya haya oo doonaya diinta alle subxaanahu wa tacaala inuu usoo jeesto laakiin 15 ciyaalana waa leey laba xaasna waa leey labada gelinna waa shaqeeyaa humuum iyo qumuum badan baa haysata adduunyada howlaheedu ku mashquulsan yihin laakiin wuxuu leeyahay cilmiga diinta inaan wax ka bartaan doonaya isaguna waa xaalo wuxuu u baahan yahay manhaj buu u baahan yahay duruufu waa kala duwan yihin qof waa qof dhalinyaro ah waktina haya laakiin ma doonaya culumta shareecada inuu ku takhasuso dooni maayo takhasusaad kaluu wadaa laakiin wuxuu kala doonayaa diinta alle subxaanahu wa tacaala inuu wax ka fahmo ayuu waxa weeye doonaya horta caddee waxa weeye meesha aada joogto booskaaga aada taagan tahay waa inuu ku kala caddaado weeye hadalkayguna maanta wuxuu ku socdaa oo uu ku wajahan yahay iyadoo kuwa kalena aanu ka madhnayn oo dee markii la leeyahay weynaan baa cilmiga lagu dalbaya ama qof mashquulsan baa cilmiga dalbaya cilmigu waa hibo iyo fadli alla uu bixiyo wey waa gallad uu alla bixiyo waxaa laga yaabaa qof saacad siiye ilaahay inuu u barakeeyo rag baa iyagoo 50 jira cilmiga bilaabay waxa weeye alcibar fi man talaba alcilma calaa kibar
maraan isku dayay mawduuca inaan wax ka jamciyo rag badan baan isu keenay qaar 60 jeer cilmiga ku bilaabo ku soo baxay qaar iyagoo 40 dhaafay oo waxa weeye mashaaqishii adduunyada soo dhameeyay cilmiga ku bilaabay haddana kutubtooda la hayo oo culimada waaweyn ee islaamka ka mid ah sida qafaal iyo ragga la midka ah marka iyadoo taa aan loo qusgoonayn cidna haddana dadka la doonayo ummadda inay u soo baxaan ee waxa weeye hanka haya kuwa noocaasan insha allahu tacaala talooyinkayga oo ay si gaara ugu socdaan iyadoo cid kastoo dadaalaysana insha allahu tacaala ay ka faa'iidaysanayso marka daalibulcilmiga hadda aynu uga jeednaa ama ujeeddada aynu ka leenahay mawduucan waa waddada loo marayo si loo soo saaro daalibulcilmi mutamakina diinta si fiican u fahansan anigu ma hayo waddo intaad marta aad ku noqonaysa caalim mujtahida oo waxa weeye madaahibtaba ka fatwoonaya taa waddadeeda ilaahay unbaa gacanta ku haya laakiin waxaa lagu damaanad qaadayaa waddo haddii aada marto aada noqonayso qof daalibulcilmi iyo diinta wax badan ka fahansan daalibulcilmi mutamakina waayo cilmiga in lagu soo baxo meel weyn laga gaadho waqtina waa u baahan tahay khibradna waa u baahan tahay mumaaraso iyo tatbiiq bay u baahan tahay itqaan bay u baahan tahay ta noocaasana waqtiga ayaa ku filan ee sanad iyo 2 sano haddii aad si kasta u dadaasho waxaad gaadhaysaa un inaad noqoto daalibulcilmi mutamakina sidee lagu gaadhaya waxaan leenahay bidaayada laga bilaabayo ee asalka u ah manhajka waxa weeye asalka u ah horta qofku waa inuu ka bilaabo wixii fardul cayna wixii qofka ku waajibay adoo aan salaad sax ahayn inaad waxa weeye naxwaha ka bilowdo adoo wixii ilaahay uu kugu waajibiyey iyo wixii lagaa xarimay jahli badani kaaga sugan yahay waxyaabaha maalintaada iyo habeenkaaga aada u baahantahay adaan aqoon u lahayn inaad tidhaahdo cilmi baan baranaya kadibna waxa weeye aada naxwo iyo usuulu fiqiya ka bilowdo waxa weeye mid saxa maaha a'imadiina waa ka hadleen imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy alladii yajibu cala alinsaan min tacliimi alqur'ani waalcilmi maa laa budda lahu minhu fii salaatihi wa iqaamati maa yaxtaaju waa in waxa aada maalintii aada u baahan tahay ee waajibka kugu ah horta cilmiga noocaas ee farducaynka waa in laga bilaabo wey waa asaas qadiyadda labaad waxaa laga bilaabaya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waa aslu lculuuma in waxa weeye la daneeyo la xifdiyo waxa weeye lagu dadaalo iyaduna waa qodob aada iyo aada u muhima salafkii qofku markuu u yimaado waxay kula talinayeen cilmiga inuu qur-aanka inuu xifdiyo inuu ku dadaalo ayay kula talinayeen bal muxadisiinta waxaa ka dhacaysay bacd almuxadisiin markuu ardaygu u yimaado isagoo xadiis doonaya inuu odhanaya qur-aanka ma haysa ma xifdida dabeedna wuxuu odhanaya maya qur-aanka soo bara kadibna i kalay buu odhanayay culimada qaar waxay gaadheen sida bacdu shuyuukhi lbukhaari markuu yidhaahdo waan soo bartay inuu imtixaan ka qaado oo meelo adag u weydiiyo sida musaabaqadoo kale hadduu galabgalableeyo uu yidhaahdo soo itqaani kadibna waxa weeye isoo noqo way dhacdaa bacdu طalabati اlcilm inuu cilmiga waxa weeye markuu doonayo inuu xifdiyo isagoo qur-aankii aan xifdiyin inuu ina maalig iyo maraaqi sacuud iyo mutuunta waaweyn uu isku hawlo bal waxaaba laga yaabaa kuwaasaaba la qaatee waxa weeye adabka iyo suugaanta iyo mucalaqaadka iyo gazalka iyo mawaadiicda noocaasa jaahiliga ah inuu waxa weeye qalbigiisa ka buuxiyo iyadoo laga yaabo qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala wax badan inaanu ka hayn qur-aanka in lagu dadaalo la daneeyo waxa ugu sahlan waa inuu qofku qur-aanka dul maro carabkiisana ku layliyo waxa weeye xitaa musxafka inuu ka akriyo uu waxa weeye itqaaniyo ayaa waxa weeye aada iyo aada u muhima mawduuca waxaa soo labaynaya inuu kitaabka alle subxaanahu wa tacaala si guud macnihiisa inta uu ka gaadhayo waxa weeye fahmo oo tafsiir muyasara oo kooban sida jalaaleynka oo kale ama tafsiiru lmuyasar oo mujamaca lagu taabaco culimo ay isugu tageen ama kan waxa weeye markasu tafsiir uu leeyahay iyo kutubta la midkee kooban ee aayadda macnaheeda ku siinaysa in waxa weeye la dul maro aada iyo aad bay muhim tahay oo marxaladda koowaad wey
talada labaad ee aan bixinaya fi manhajiyati طalab اlcilm waa atadaruj cilmiga istaab istaab in loo dalbo oo waxa weeye sida zuhri iyo culimo badani ay yidhaahdeen man raama alcilma jumla dahaba canhu jumla qofka doona cilmiga hal mar inuu wada dalbo 5 fani 5 kitaab ayuu doonaya mar inuu wada qaato waxa weeye cilmigu qofka noocaasa waa ka wada tegaya istaab istaab cilmiga in loo qaato iyaduna waa qodob aad iyo aad u muhiima oo aan waxa weeye ku talinayo alyawma shayء wagadan mithluhu min nukhab اlcilmi alati tultaqط yuxasilu اlmarءu biha xikmatan wainama الsayl اجtimaacu الnuqط maanta faa'ido ama mas'alo ayaad faa'iidaysanaysaa maalinta xigtana masalo labaad waxa weeye cilmi badan baad ku xasilinaysaa maca alayaam wainama الsayl اجtimaacu الnuqط daadka dadka maashaynaya rogaya waa dhibcihii roobka oo isu tegay wey qadiyadda labaad alawlawiya fi طalab اlcilm in awlawiye aada yeelato maxaa mudan maxaa muhima inuu qofku leeyahay halkeebaa mudan inaad ka bilowdo mowduuca noocaasana waa in maskaxda imanka lagu hayo wey culumtuna waa laba culum asaasiya asliya maqsuuda waxa weeye gaayada ah yoolka loo socda ah iyo culum kuwaa u adeegayo musaacida meesha la danaynayo ee loo socda waa culumta asalkaa weeye waxayna isugu soo biyashubanaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa in la fahmo hadalkooda kitaabka alle subxaanahu watacaala in la xifdiyo macnihiisa la fahmo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la xifdiyo macnaheeda la fahmo labadaasay isugu soo biyashubanaysaa waxyaabaha ka dhalanaya ayaa soo gudagelaya hadday tahay cilmigii caqiidada oo asaasa haddii ay tahay cilmigii axkaamta camaliga ah haddii ay tahay cilmiga aadaabta iyo akhlaaqda iyo manhiyaadka iyo waajibaadka aadaabta ku saabsan culumtaasoo dhanina waa culum asaasiya oo laga qaadanaya kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam aalibulcilmiga doonaya mustaqbalkiisa in loo aayo waa inuu taa waxa weeye indhaha ku haya taa waa inuu tiigsanaya uu iska ilaaliyaa bunayaati طariiq waxyaabaha jidgooyada u gelaya waayo mid baa doonaya kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu fahmo luqadii buu bilaabaya waxaa laga yaabaa luqadii markuu caruudka gaadho ama uu gaadho waxa weeye balaagada ama bayaanka iyo badiico ka mida uu gaadho kuwa noocaasa inta uu ka helo halkaa gaadhigu intuu kula banjaro meeshii uu u socday inuu gaari waayo ayaa laga yaabaa waqtigiisa uu ku bixiyo awlawiye waa inaad leedahay hadaf iyo yool waa inaad leedahay haddaad doonayso aalibulcilmi mutamakin oo diinta loogu aayo inaad noqoto kadibna culimada waaweyn ku dambaynaya waa inaad danayso awlawiyaadka loo baahan yahay ee ah culumta asaasiga ah ee aynu waxa weeye tilmaannay qadiyadda saddexaad ee muhimka ah ee la doonayo markaad doonayso cilmiga inaad dalabto waa talaqi اlcilmi calaa yadi اlmashaayikh cilmiga inaad culimo ka qaadato inaad culimo u leedahay sida hadda in badan dhacda waxa weeye waxaa iska jira dad shiikoodu uu yahay googal uu yahay berigii hore culimadu waxay odhan jireen kutubta laa taakhud اlcilma min صaxafiy cilmiga ha ka qaada nin waraaqaha ka qaata kitaab soo koobiyeysanaya kadibna waxa weeye ka qaadanaya cilmiga halkaa ka qaadanaya laakiin hadda wayba ka sii darta waxa weeye googalunbuu ku dhufanaya wixii uga soo baxa ma shiiciba ma nin lunsanba man habba wadabba wadaraj qof cilmi lama yahay maanta dad badan baa diinta ka hadloo iska dhex dabaasha oo sida thaqaafada kale iyo kutubta kale la ysaga akriyo waxa weeye cilmigii sharciga isaga akrinaya qadiyadda cilmiga culimo in laga qaata iyaduna waa mid aad iyo aad u muhima maxaa laga faa'iidayaa culimada kow waxaa laga faa'iidayaa waddo aada u dheer oo haddii aadan shiikha ka qaadan lahayn waktigu uu kugu dheeraan lahaa ayuu shiikhu masaladii tacabku ka soo galay habeenkii uu ku saamaleylay u safray zubdadii iyo khulaasadiibuu si yaroo fudud kuugu gudbinaya markaa wakti badan baad ku soo khulaasaynaysaa
khaasatan qofku hadduu cilmi cusub oo hor leh uu bilaabayo waxa weeye qadiyad laga maarmaan ayay noqonaysa. marka laga hadlayo mawduuca inoogu xiga funuunta laga hadlayo ama cilmiyada laga hadlayo ama mutuunta laga hadlayo dhowr qodob baan insha allahu tacaala waana kusoo gabagabaynaya ayaan tanbiihinaya. culimadu mashaariqa iyo magaaribaa loo qaybiya. nimanka magaaribada la yidhaahdo Morocco iyo Mauritania iyo Jazaa'ir iyo kuwa la midka ah waxay caado u lahaayeen in waxa weeye hal cilmi ay bilaabaan markay meel fiican ka gaadhaan kadibna cilmi cusub oo hor la ay bilaabaan. laakiin qolada bari Xijaaz iyo Khaliij iyo Masar iyo meelaha la midka ah inaguna aynu soo galayno ku xisaabsannahay caadadoodu waxay tahay 2 cilmi iyo 3 cilmi inay waxa weeye wada bilaabaan hal mar ay wada bilaabaan. laakiin khulaasada iyo zubdada ayaa waxa weeye tilmaamaya dadku waa laba. qofku cilmigii hadduu wax ka bilaabay oo cilmigu aanu ku cusbayn oo sees uu leeyahay kitaab buu si fiican u dhigtay waxna waa ka fahmay. 2 cilmi oo noocaas oo kale uu sees u leeyahay 2 kitaab haddii uu ka dhiganayo waxa weeye waa qadiyad aan ba'si ama dhibi ku sugnayn haddii waqti loo hayo. wa ilaa asalku waxa uu yahay khaasatan qofka bilowga ah halka cilmigii uu bilaabay inuu waxa weeye hal kitaab ya hal shiikh ya hal fanni uu waxa weeye xooga saaro markuu fahmo kadibna fanka labaad uu gudbo. sida yidhaahdaan shanaaqidadu وإن تريد تحصيل فن تمم وإن تريد تحصيل فن تممه هذا دون يسوع علمي إن تحصل السلام ميستر وعن سواه قبل الانتهاء علمي يذا كلنا انت هذا كارد ما ينكجوكسو ففي ترادف العلوم المنع جاء انت وأمان استبق لم يخرج لبما تانا يهدي دون يمر إن يصور بحان وحوية مصابيح كرام لبا علمي هذا دون يسهل مر إن وضع حصل يسو وحوية ما دعيسو وحلقة سوريبي كرام قفك وقت هيا مسكحنا هيا جانس علماء كقاتنا هيستا أو فائدين يسا قفك نوع سوكلا والله غيابا إنه وحوية إصلاح السليو لكن أنت بدل لا أودي مايو marka doonayso matni inaad bilowdo مثلا نحوه kala doonaysa inaad bilowdo ama fiqigo kale hadda waqti uma hayo daqiiqad baa ii dhiman inaan maado walba kutubta ugu muhiimsan waxa weeye sheego culimadii naxwaha dhigaysa baad kala tashanaysaa naxwaha sida loo bilaabay kutubta laga bilaabo culimada fiqiga dhigta baad weydiinaysaa fiqiga halka laga bilaabo culimada xadiiska dhigaysa ayaad weydiinaysaa la tashanaysaa xadiidka halka waxa weeye laga bilaabayo ka caqiidada daneeye aad ka u dhigay ku caan baxay ayaad weydiinaysaa kutubta caqiidada ugu muhiimsan waxa weeye si gaar ah aad ula tashanaysaa taa intaasaan ku dhaafaya laakiin matni markaad doonaysa inaad bilowdo waxa muhiim ah si aad uga midho dhaliso talooyinkan inaad waxa weeye tixgeliso matnigaas horta tabcada ugu wanaagsan inaad baadho tabco khadkeedu fiican yahay loo adeegay mu'allifka la doortay ka tarjumays waayo waxa laga yaabaa matniga aad qaadatay inuu yahay tabcan liidata oo iyada lafteedu ciwaj ay ku gelinayso oo waxa weeye tasxiif uu ku sugan yahay waa inaad matni muxaqaq oo la hubo waa inaad waxa weeye qaadataa shiikha aad ka qaadanaysaana waa inuu yahay shiikh cilmiga lagu yaqaano ku fiican waa inuu yahay matniga noocaas marka lagu bilaabo waxa aad iyo aad u muhiima inta aadan shiikha kala kulmin horta casharka inaad isha sii mariso si aad u fahanto meelaha aad isleedahay waxba kaagama bilowna macna guud aad uga sii qaadato meelaha aadka u adag aad calaamadsato waa mid iyaduna aad iyo aad u muhiima waxa muhiima iyaduna aad iyo aad u muhiima darsiga markaad shiikha ka qaadato ee aad ka dhagaysato horta dee in si fiican loo dhagaysto oo waxa weeye waayo de hadda waxa dhacda qofkii taalibul cilmiga xalqada isagoo fadhiyo facebookana inuu ku jiro message inuu dirayo ayaa laga yaabaa waxyaabaha cilmiga qofka seejinaya ka mid tahay barakadiisana ka qaadaya marka anigu hadda waxaan ka hadlayaa ninka soo jeeda ayaan ka hadlaya markuu shiikha si fiican u dhagaysto inuu sameeyo darsigiina uu qaato muraajaca inuu sameeyo ku celceliyo tarkiis inuu sameeyo waana halka lagu kala tegay wey
ardayga casharka muraajacaynaya ee ku noqonaya iyo ka casharka cusub u soo fadhiisanaya waxa weeye wax isu dhow ma aha. wa ajdaru lculuumi an tucaada usuluha wamaa hada alcibaada kam karara alashyaakhu lilusuuli wamaa buluu bimadhabi اlfuduuli. in lagu celceliyo darsigii lagu celceliyo si waxa weeye loo itqaaniyo waa qadiyad aad iyo aad u muhima. waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mid a welibana markaad cilmigaa ku cusub tahay saaxiib inaad leedahay ama inaad leedahay xalqo iyo caado markuu shiikhu meesha ka kaco asxaab kula loda oo waxa weeye wax kula fahmaya oo waxa weeye gareerkaaga ah inaad kitaabkii ku wada ceshanaysaan ka wada munaaqashoonaysaan. shiikhu sidaasuu yidhi iyo sidaasuu yidhi. waxaan xasuustaa markii ugu horreysay ina maaliga aanu dhiganaynay xalqaan u lahay. xalqada markuu shiikhu saan nooga kaco ayaanu waxa weeye muraajacaynayna. dabeedna waxaa laga yaabaa meela inaanu isku qabanno. shiikhiyo hadda naga kacay oo daqiiqada naga maqan baa raggii meesha fadhiya shiikhu sidaasuu yidhi iyo sidaasuu yidhi. bal waxaa laga yaabaa 3 qowl inaanu isugu khilaafno. 3 qowl markuu shiikhu noo yimaado darsiga cusub baanu weydiinaa. dabeedna wuxuu yidhahdaa qoladaasaa saxsan qol uu xukumay. faham badan baa lagu helaya in waxa weeye lagu celceliyo cilmiga lagu celceliyo. in la helo saaxiib wanaagsan waxa weeye inaad hesho iyaduna waa qodob aad iyo aad u muhima. waxaan kaga baxaya kusoo gabagabaynayaa cilmiga wixii u baahan tadbiiq u baahan. cilmiga dhaxalkaad doonaysaa inaad barato sida ibnu cuthaymiin uu yidhaahdo waa inaad dadka laysawi maa xabad inaad ku layso. halaka haalikun kaba soo qaad hooyaa waxay ka dhimatay intaas hooyadaa ma hadday doonto habaari maysiine laakiin waa inaad tusaalayaal badan tusaalihii shiikhu kuu keene kuwa aan ahayn adigu waa inaad samayso wey oo aad dabaqdo oo aad dhaqan geliso. naxwo hadduu yahay waa inaad aayad ama xadiid ama gabay intaad soo qaado inaad mumaaraso iyo tadbiiq iyo dhaqangelin intii aad gaadhay inaad ku samayso. iyaduna waa mid cilmiga lagu xasiliyo. talkhiis buug inaad leedahay oo qodobada muhimkaa 10 walba inaad khulaasaysato iyaduna waa muhim. waxaan kaga baxayaa cilmiga haddaan waqti la siinna meel laga gaari maayo. wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ سؤال جريميات لبس سؤالات باجرة كوكوبا شيخ waxaan siinaa 40 daqiiqo 42 buuqaatay su'aalaha toobeen ugu tala galay laakiin 8 daqiiqayn su'aalaha ku soo ururinaa maxaa yeelay su'aaluhu ma badna oo laba su'aalood baa markii hore soo gaaray kuwa dan soo dhacayana aan mareynaa inaan aado siin doonin. su'aalaha waxaa ka mid ahaa nin daalib cilmi ah Carabi uu ku soo qoray laakiin Soomaali baan ku soo ururinayaa. wuxuu yidhi waxaan arday doonayaa inaan fanni funuunta shareecada ku takhasuso laakiin kii aan dooran lahaaba igu adag oo doorashadii ayaan la kareedinay maxaa tala isiin lahayd. ninkan wuxuu yidhi sida ugu kooban ee cilmiga loo xifdiyo isagana waa wuxuu rabaa isagana in tala laga siiyo inkastoo talooyinkii hore ay markaa ay ku jireen. waxaa kaloo su'aalaha ka mid ahaa 3 su'aalood baynu ka dhigaynaa kuwa kale hadda soo dhacaya waqtiga waa ka dhacooday waqtiga inuu kooban. su'aasha saddexaad in la duubo oo casharadiyo duuban dib loo dhageysto halkii sheekha ma buuxin karaan oo sheekhi ma laga maarmi karaayo canjiradaha ma la dhageysan dhageysigooda ma lagu kaaftoomi karaa. saddexaad su'aalood sheekh. su-aasha koowaad qofka hadda doonaya inuu cilmi si gaara u daneeyo ama ku takhasuso ama uu xooggiisa geliyo haddii aanay weli u kala caddayn waxaan leeyahay tii hadda aynu ka hadlaynaa awlawiyada hadalkayga waa ku jirta culumta asaasiga ee maqsuudka ah kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxa weeye haddanayo. labadaa hadduu sii kala dooranayo kolley laba kala haraya maaha. haddaad qaadato kitaabka alle iyo tafsiirkiisa xadiidkii nabigana calayhi الsalaatu wasalaam laga maarmi maayo. laakiin hadduu mid sii danaynayo kolley anigu xagga xadiidkan ah oo waxa weeye cilmulxadiidka takhasuskaygu ahaa qur-aanka alle subxaanahu watacaala in aada loo daneeyo oo lagu dadaalo sunnada nebigana calayhi الsalaatu wasalaam lagu xejiyo ayaan talada noocaasa siinaya. qur-aankii hadduu xifdiyey tafsiirkiisana fahmay sunnada nebiga caddaysay oo balballaadhisay
oo abwaabta shareecada oo dhan iyadoo mufasala salaadu kow ka tahay laga helaya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam xoogga inuu saaro hadday ku adkaatana labadaa mid inuu kala doorto waa haddii aanu xaalku u kala caddayn iyaga ay caqiidadii ku sugan tahay fiqigii ku sugan yahay aadaabtii iyo akhlaaqdii ku sugan tahay diinta oo dhani ay ku dhan tahay culumta kalena ay u adeegaysaa ninkaa takhasuskaa taladaasaan siinaya waxaa taasoo labaysa inuu cilmi waxa weeye xiisaynayo kaa uu xiisaynayo waa inuu ku dadaalaa inuu cilmi alla subxaanahu watacaala u fududeeyey oo ragga qaar dee salafkii ka mida naxwaha ku adkaaday qaar waxaa ku adkaaday dhaxalka qaar xisaabtaa ku adkaatay qaar waxaa ku adkaaday cilmiyo kale cilmiga kugu adkaaday idaa lam tastatic shay-an fadachu wajaawizhu ilaa maa tastatiicu cilmiga kugu adkaaday dhaafoo ka sahlan u gudub marka cilmigaas leedahay wuu kuu sahlan yahay isaga laftiisa dane oo awlawiyada sii waxaa iyaduna muhima cilmiga aad jaanis u helayso shiikh fiican aad u helayso la dhigayo haddaad hargeysa iska dhex istaagtaa tahay dhaxal baan doonaya wax kuu dhigana aada weydo oo meel walba lagu hayo cilmiyo kale lagu hayo ma hadda inaad khiyaali ku noolaatay ama rexlayso oo magaalo kaleoo dhaxal lagu hayo doono ama kuwaa la hayo ka faa'iidayso qadiyadda waktiga iyo jaaniskuna iyada lafteedu waa ku xadidaysaa insha allahu tacaala laakiin markaad cilmi doorato waxaan ku talinayaa qofku cilmi inaanu ku takhasusi karin isagoo culumta kale jaahilka ah waa inaad cilmiyadoo dhan bays fiican aad soo gaadhaa meel fiican aad soo gaadhaa cilmiga aad masaladii ka baadhan karto aad ka baadhan karto aad waxa weeye baxdi ka samayn karto mustawe 2 kitaab 3 kitaab waxoogaa mutaalaca ah cilmiga inaad ka hayso kadib baa takhasuska ku anfacaya laakiin haddaad tidhaahdo cilmi baan ku fogaanaya kuwa kalena dan baan ka ahay kaa laftiisa dan baad ka noqonaysa takhasuska intaasaan ku dhaafay su-aasha labaad xifdiga waa mawduuc dee aada isaga ballaadhan kolley muxaadaraan ka galay nadkana ku jirta qaabka loo xifdiyo u gaara waxa weeye faxfad fi kullu xaafidin imaamu aclamunaa axfadunaa baa ciwaankeedu ahaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saacad iyo dheeraad bay ahayd xifdigay gaar u ahayd qaabka loo xifdiyo maxaa la xifdinayaa waxyaabaha kuu fududaynaya xifdiga hadday tahay wax la samaynayo hadday tahay wax la cunayo wax la cabayo waxa weeye tafaasiil badan bay leedahay laakiin waxaan kaga baxayaa marka xifdi laga hadlayo kow waxa ka ah horta inaad waxa weeye macaasi iyo dunuub ka maran tahay sida macruufka ah laba markaad doonaysa inaad wax xifdinayso inaad wixii u soo jeedo tarkiis iyo soo jeed iyo danayn iyo ihtimaam iyaduna waa qadiyadda labaad weeye ma aha dee sida hadda imtixaanaadka loo qaybo waa aragteen shaygii lagaa doonaya imtixaanka lagu gelayay waa laga yaabaa habeenkii sida faatixada inaad u qaybto laakiin subaxa ku xigta waxba kama haysid marka inaad danaynayso waxaad xifdinayso iyaduna waa muhim alle subxaanahu watacaala inaad la kaashataana waa muhim matniga loo adeegay ee makhduumka ah ee laga shaqeeyey ee sharaxa leh isagana inaad xifdido waa mid iyaduna muhima wasaa'il kala duwan inaad kulmiso kitaab fiican oo si fiican loo daabacay inaa waa la helaya isagoo duuban oo lagu akhrinayo qur-aanka laba waa ka duuban mutuunta badankeeda hadda waa la duubay ina maalig haddaad xifdinayso waxaad helaysaa dad si fiican u duubay qof kuu tartiibinayo 2 saacadood ku duubay mid dadejinaya haddii xifdigaagu degdeg yahay oo saacad kuugu luqaynaya ina maaliga oo marna aad dhegaysanayso marna kitaabka aad eegayso in waxa weeye lagu celceliyo waqtiyada wanaagsan ee hurdada laga soo toosay ama qofku uu nastay bacda alcasr salaada subax ka bacdi intaan waxa weeye xilliga salaatuleylka la tukado waqtiyada wanaagsanna in la eegto meelo xasiloon tukaankii hargeysa ku dhex yaalla ama calimataan u dhowaa ee 200 ee qof ay saa isu dhaafayeen haddaad kitaab la kala baxdaa tiraa waxbaan ku qaybaya weligaa ku geli maayo 10 sano haddii aad fadhido marka meel xasiloon oo deganna in waxa weeye lagu xifdiyo iyaduna waa muhim qodobka ugu dambeeya cajaladaha waxa weeye cilmi ma laga qaadan karaa cajaladaha tafsiil baynu gelinaynaa qofku inta uu shiikh helayo cajalada muraajacaha ka dhigto shiikhiya intaad helayso cajalada muraajaca ka dhigo waa talawi walibana dee tala la tijaabiyey wey intaad shiikh helayso ma aha shiikhiyo masjidkii fadhiyo kitaabkii dhigaya
waxa weeye qofku inuu yidhaahdo gurigaan iskaga dhegaysanaya qaa'iman wa qaacidan wa calaa janbi mar anoo jiifa mar waan daminayaa mar waxa weeye waan usoo kacayaa anaa isu haya sidaa cilmi ku keeni maysa laakiin kitaabaad dhigatay inaad ku ceshato ama aad sharax labaad ka dhegaysato shiikh labaad ka dhegaysato tan noocaas waxbaad ka faa'iidaysanaysa khaasatan qofka bilowga ah qofka sees kale inuu waxa weeye sii ziyaadsado culimo kale kutubtii ka dhegaysto iyadu wax dhiban male cajaladaha waxa la yidhaahdo waxa weeye waxa ka horeeya shiikha ayaa ka horeeya laakiin la mamnuuci maayo kayd badan baa yaala kaydkaana in laga faa'iidaysto waayo miisaad badan baa laga helayaa waxa kow ka ah inaad wakhtiyo badan oo aadan culimo helayn inaad waxa weeye aada hayso in ay kuu fududahay inaad qaadato mobilka iyo mimarigaad iskaga sidataa adoo safarabaad dhegaysanaysaa furas badan iyo fawaa'id badan baa laga helayaa laakiin waxa weeye cumdo noqon mayso ishkaal hadduu kugu istaago dee cajaladu kaaga jawaabi mayso marka cajaladahana waa laga faa'iidaysanaya laakiin culimada marnaba lagaga kaaftoomi maayo wallahu tacaala aclam